ما أنا أركين وحكايا بيفتح بدن بني آدمكو وحا أي كدا ليان يرانتا وأي وينانيان مسانا وحا أحيسيان عيال نمدي caafimaadkooda ay u luminayaan si ay lacag u kasbadaan misana lacagtii ay u bixinayaan si ay caafimaad u helaan mustaqbalka ay ka walwalayaan waxayna ilaawayaan noloshii joogtay markaas ay mustaqbalkii iyo noloshii joogtay bay seegayaan waxay u noolaanayaan sidii iyagoon weligood dhimanayn markaas ay u dhimanayaan sidii iyagoon weligood noolaan daada iyo waqtigu waxay u soconayaan si dhaqso ah waxba rajadu ay kula dheeraan carabkaaga ka xafid xumaan qof kasta wuu dhashay una dhiman alle oo kaliya ayaan dhiman doonin qof kasta labis fiican sita maahan boqortooyo qof kasta faqiir ahna maahan daciif intee faqiir jira dadku ay u yaqaaniin boqortooyo intee sinin waxayse jira dadku ay u yaqaaniin doqon nolosha ay bartay inaan qalbigayga ka dhigo magaalo guryaheedu yihiin jacayl wadooyinkeeduna saamax waxaad ku raaxaysanaysaa duni camiran oo aadan joogi jirin way qurux badan tahay inaad farxad ku noolaatid laakiin waa inaad taqaanaa kobciyaha farxadda aadamiga waa abuuraha duni aan jiri jirin waana rabbiga tirtiri doona caalamkan aynu ku noolahay waxaa dhici doonta maalin qalbiyadu gilgilmayaan indhuhuna taagmayaan dhibaato awgeed haddaba maxaad sahay wadataa oo kaa horreeya waan kuu nasteexaynayaa walaal isxisaabi intaan lagu xisaabin haddii aad gaftid wanaag ku bedel xumaan kasta dhoolacadee goortii aad murugaysan tahay kuna qanacsanow waxa aad haysato iyo qadarka eebbe had iyo jeer cafi cid kasta oo kugu xadgudubtaa ogow dadku isbedelayaan qaladaadna waa ay dhacayaan laakiin xusuusnow in noloshu ay soconayso kolba wejina ay kugu soo qaabilayso xaalad kasta oo aad kala kulantana ku dhaaf dhoolacadayn iyo alla oo aad tala saarato waxaad dareemaysaa inaadan qancin karin dadka oo dhan si kastood ugu dadaashid waqtina u siisid ogsoonow in raaligelinta aadamigu ay tahay hadaf aan la gaarin marnaba kuma suurtoobayso inaad qanciso dadka oo dhan sababtoo ah waa arrin ay xitaa awood u yeelan waayeen ambiyadu laakiin ha noqdo halbeegaagu raaligelinta eebbe iyo qancinta naftaada waxba yaanay saamayn kugu yeelan afkaarta dibadda kaaga imaanaysa ma nolosha ayaa kugu adkaatay albaab welibana waa uu kugu xidhmay ha niyad jabin ogow allihii muuse badda ka fayday xilligii dhibaatada iyo naxdinta inuu awoodo albaab walboo xidhmay inuu kuu furo ha murugoonin walaal ma ahan rabbi midka indhala ilintaada ka dhagala ducadaada kana aamusan xanuunkaaga waa uu ku arkaa kuna maqlaa waana uu kuu soo jawaab celin doona